daqiiqado ka hor hoteelka Jazeera ee magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho waxaa kusoo gabagaboobay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta, dhaqanka, ganacsatada, culimada, aqoon-yahanka iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada gaar ahaana beesha Xawaadle halka oo looga dhawaaqay gole farsamo oo loogu magac daray golaha midnimada iyo horumarinta beesha Xawaadle. Soo dhawaada muuqaalkan waxaan doonayaa in aan si kooban idinkaga dabageeyo shirkaasi waxa uu ku saabsanaa iyo sidoo kale waxyaabihii looga hadlay. Shirkan oo heerkiisu sarreeyo isla markaana ay soo agaasimeen dhalinyaro aqoon-yahan ah kana soo jeeda beesha Xawaadle ayaa maanta waxa uu ka dhacay hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho. Shirkan oo ahaa mid ballaaran isla markaana bulshada qaybihiisa kala duwan ay ka soo qayb galeen ayaa waxa uu ahaa shir lagu iclaaminayay ama looga dhawaaqay gole loogu magac daray golaha midnimada iyo horumarinta beesha Xawaadle. Kulankan lagu daahfurayay golahan loogu magac daray midnimada iyo horumarinta beesha Xawaadle waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin mug iyo miisaan ku leh masraxa siyaasadda dalka. waxaana ka mid ah wasiirka macdanta iyo batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Shire Maxamed, xildhibaanada dowladda federaalka ku metela beesha Xawaadle qaar ka mid ah senatarada iyo sidoo kaleeto siyaasiyiin iyaguna kuwa hadda xilka haya ama xilal kala duwan ka haya dowladda dhexe, maamulka gobolka Banaadir iyo isteedka iyo sidoo kale kuwa hore usoo hayn jiray intuba waxay isugu yimaadeen kulankan lagu iclaaminayay golaha midnimada iyo horumarinta beesha Xawaadle. Dhammaan mas'uuliyiinta madasha ka hadlay ayaa diiradda waxay saarayeen in ay taageeraan, aqbalaan, isla markaana bogaadiyaan aasaaska golahan iyadoo laga rajeeyay in ay u horseedi doonaan dhalinyarada beeshan ka soo jeeda horumar wanaagsan, sidoo kalena ay tub iyo tusaale u jihayn doonaan siyaasiyiinta u dhashay beesha. siyaasiyiin dhowr ah oo madasha ka hadashay isla markaana uu ka mid yahay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ayaa taageeray madashan oo ku tilmaamay in ay tahay tallaabo hore loo qaaday isla markaana bulshadu ay u baahan yihiin ismaqal iyo isadeeci. hadalka ugu kulul goobta waxaa kusoo gunaanaday ugaaska beesha Xawaadle, ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, ugaas Khaliif kaa oo siyaasiyiinta ku canaantay isgarab orod iyo sidoo kale inaysan beesha usoo qaadin mar walba wax u qalma, waxaana uga digay in ay mar kale hawshaasi ku laabtaan, isagoo sheegay in si wada jir ah oo wada tashi ah go-aan lagu gaari doono ciddii khilaaftana meel looga soo wada jeesan doono.